dadkii waxaa aad ay dadku ugu bateen maaragtay bariya bulshada oo taa hurda laanta keenaysa tusaale ahaan ay dad fara badan kasayo afar dhibta saacood ku jira live ama ku jira baraha bulshada ku jira oo saa uga qaylinaya dadkaasi maxaa la socon karaa ma miyuu ma sax ma yahay mise dhibaatada ugu weyn marka saameynta ugu weyn waxay tahay marka qofkii uu soo dhaco dadkiina ay culays ku noqoto oo qofkii marka inay noqoto inay dilaan way ku xadgudbaan oo silsilada markaas way uga sii dartaa qofkii marka process kala duwan leh marka waxaa muhiim waxyaalo badan oo naga qorsoomay waa hadda banaanka u soo baxay in haddii ay fududahay adoo iska fadhiyo xataa aadan ku jiri karin ama ku jirinba ama aqoon u lahayn social media in haddii lagu yiraahdo jamaal maaragtay adaa laga hadlayo marka dee waa inaad jawaabtaa marka bulshadii socialka kugu khasbaan inaad tira war waxaa shughul kuma خطرات صحيح وين أيوة كلية هاي طبعا لبنان سيبت إيقاعات كو سومالي عفوين كو حياتك سومالي دا dadka imka idii maadaama kaasi ee bukaan jiifka inta badan ma isla hadalka iyo taajinka iyo buudiyaan mise waxa soo kala qayb ka ah mukhadaraadka sidoo بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وأنا ونصداوديال كوسدوda mar kale barnaamij gaar ah oo aan kaga hadlayno dhalinyarada qurbajooga ee dalkii dib cilmigoodii ugu celiyay maantana waxa sharaf ah inaan la kulmo Dr. Liibaan Maxamed Cumar oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud iyo waliba sidoo kale gaar ahaan cudurrada dhimirka aad iyo aad u soo dhawo Dr. Liibaan mahadsanid ma sha Allah goorantii waxaan jeclaan lahaa inaan ambaliyo bogaadin idin jeediyo iyo dhammaan asxaabta bulshooyinka Soomaaliyeed ku xiran aadaanan idinkaga mahadcelinaa barnaamijkan iyo waxyaalaha waxtarka u ah bulshada maaragtay aad iyo aad ku bogaadina aad iyo aad mahadsantahay aad baad walaal u mahadsantahay Dr. Liibaan waxa uu dabcan wadanka ugu koray waxna ka bartay soo kale waxa uu culumta cilmiga caafimaadka ku soo qaatay dalalka Ruushka iyo Talyaaniga tan iyo 2012 waxaad ka shaqeynaysay Sweden imikana sanadkii ugu dambeeyay waxa tagtay Soomaaliya magaalada Muqdisho garan ayaa dhakhtar ka furtay dhimirka sida ay sheegtay xanuunada dhimirka iyo xanuunada guudba bal waxaad warbixin naga siisaa soo shaqeeyo dhakhtarkaaga warta wallahi run ahaantii horta waa ma fududeyn inaad adoon nolol haysta standardka nolosha wax walba isugu kaaritaban yihiin inaad geedi aad Afrika iyo noloshii adkayd iyo dhinacyo kala duwan lahayd muddo aad ka maqnayd adoo yar aad ka soo tagtay inaad nolol cusub bilowdo dhaqaalihii iyo noloshaad haysan inaad ka tagto marka waan u bareeray waana asbaabo waaweyn oo qof kastoo Soomaaliya oo maantay la gucleynayo sidii dadkii ugu noqon lahaa waxna u tari lahaa marka alxamdulillah clinic Liibaan Polyclinic and Psychiatric Center Muqdisho ka furnay waxaan gacan weyn ka helay dhammaan ugu mahadcelinaa bahda caafimaadka ee magaalada Muqdisho jaamacadaha dhaqaatiirta guud ahaan baahiduna baahi aad u weyn oo waxaan arkay bukaano badan oo maaragtay deegaanada Soomaalida inta badan sida Hargeysa Baraan Boosaaso Garowe ilaa Laas Qoray ilaa Jalalaqsi Buurane dhul meel badan marka baahida aad u badan tahay
وهاجا وينو يمدنا تاليبان لكن أديك قرب كل راتينا دركي كل نقطة هالك بدك شغل شيء أو سنة بدنا كشغل سمركات جامعة كبحثي طبعا سام قرب فكر كاسي سوق هو ميدنا دركي كل عوضات يعني عطفرتون اختار عادي والسؤال رنانتي وحنا عدد كمر والبابا والدك عاد ugu xira waalidkiina uu joogay dalka marka waan ku qasbanaa marka inaan ku noqono marka muddadii dambe markaan hadda ku laabanayay baa waxa dhacday marka waxaan arkay baahi badan oo familkii iyo qaraabadii iyo dadkii asxaabtii dhinaca caafimaadka oo ii sheegay baahi weyn inay jirto marka halkaasaan ka gartay marka in baahi weyn jirto marka go'aankayga iyadoo aad u adkeyd waxaan gaaray sanad 2020 oon sahan u tagay 2 jeer kadibna aan go'aansaday inaan u bareero inaan galo haddana sanad baan hadda soo xiray maarsadii lasoo dhaafay 2 maarso hadda waxay noqotay sanad waxaan ku guuleysanay alxamdulilah 10 qof oo personal inaan maanta wada shaqeyno shaqaala in laboratory weyn inaan leenahay polyclinic oo open oo outpatient oo bukaanadu yimaadaan ka tagaan inuu noqdo meel observation emergency-ga aan leenahay farmashiyo daawooyinka oo quality dhinaca Turkishka aad u isticmaalno xiriiro waaweyn inaan la sameeyno fiican hay'adaha iyo isbitaalada qaybaha kala duwan caafimaadka magaalada Muqdisho ما شاء الله وسوينا نسن مركز هذه نقطة وصلنا قلنا بالهدات سي جود حنونا ديميركو إلا ينتيو كلا بحان سيدة بقى عذورة ديميركو وقيب كم إذا عافماتك أقول تيدنا أنت بدنا دونكو وكوير لكن هذا وأيضا دم ما دام اللي بعتذا عاد أصاب بدته هذا عاد باي مارك تدك وفوجيين أقول درب بحسنا بالشدة خاصة سومالي ذا أما dadka madow ama dad least development country wadamada aad ugu yar tahay waa qayb ka mid ah caafimaadka waa marka qofku isbedel ku yimaado habkii uu noolaa oo dadkii uu la noolaan ay ka gartaan qofkii inuu gabay waxyaalaha aas-aaska u ah nolosha ha noqoto aragtida ha noqoto jawiga ha noqoto garaadka dhinacyo kala duwan markaas waxaa la oran karaa waa cudur qofkii saameeyo dhinaca dhimirka waa si wanaagsan marka dadka waxa la yiraahdaa Soomaalida dad far badan wadanka dagaalaya waxba ka dhacay dad far badan Soomaalidu waxa la yiraahdaa way qarsadaan dhimirka xanuuno far badan waxa jira aan ku soo ridanayn laakiin qofka laga dareemo haday noqoto shakiga waswaaska waxyaabaha inkaasa marka adigu kulli khibrad badan dad badan waa la kulantay oo bukaan jiifa waa goorta la soonaya qofkan waa madartay wuxuu gaaray xadkii caafimaad darrada dhimirka bukaanada inta badan 99% yimaada waxay yiraahdaan qofkan jinni uu qabaaba sida ay u macnaha ay ku tahay marka qofka jinni uu qabaa jinniya maad ka hadlaayo jinni way waxa dadka dilaya marka waxa badan marka stigmada ama waxa la yiraahdo takoorida aad u badan marka familka ama reerku gabadhoodii iyo odagii iyo wiilkoodii inay yiraahdaan qofkii waa waashay hadalladaas terminology ereygaas wax weyn ku tahay dhaawac weyn ku tahay marka way qariyaan marka markasta waxa dhacda qofkii in lala sugo ilaa uu soo dhaco markuu soo dhacana waa marka qofka xuquuqda iyo xaqi bini'aadamnimada karaamadii u lahaa qofkii hadana laga sii qaado oo lagu sii ciqaabo oo silsilado lagu xiro oo aan inta badan oo dadkii raxanka u ahaa waxay la raadiyaan dabiib way la raadiyaan oo maaragtay quraan saar iyo meelaha cilaajka iyo meelahaas la geeyo laakiin way ku yar tahay aragtida in qofkan cudur uu haayo aqoonteeda garaadkeeda aad ugu yar yahay marka waxyaalaha hadda xoog aan saareen ugu badan waxay tahay aqoonta inaan kor u qaadno cudurrada dhimirka iyo calaamadaha lagu garto iyo sidoo u saameeyo iyo wixii la halmaama
وهجاج واحد جرت هذا بس سكر الليبان أو أن وطن ضد بن علاج الوحدة تذكر إنك شيء زي علاج كذا تذكرسي قرآن بالوش ذا طبعا قرآن كودي الدواء يسوونه لكن قرآن تلوش ذا ما لا يبقى عنده وين عن للسنين أو ما لو حدا أو قف كسر لو حدا إلا يمك بالعلاج شيء يجو ما ذكر أساسي وحط طبيبان runaahantii cilaajyadu waxay wadamadan horumar ay la mid yihiin waxa la yiraahdo behandlingsham ama guryaha dadka lagu tabiibo laakiin heerka advance macnaha heerka aqoonta iyo hawlaha iyo waxa la qabanayo iyo qofka waxa laga daaweyna way ku kala duwan yihiin waa waxa hadda bulshadeena ku cusub inkastoo dhinaca ganacsiga guud ahaanba isaga badatay laakiin howlo waaweyn bulshadu u hayaan oo kala duwan qofkii daroogadii ha noqoto ayadana aqoon xumo ay jirto habkii loola tacaali lahaa ma jirto qaybta emergency-ga ilmaha ama dhalinyarada ama qofka daroogada problemka haysta abstina ama dhibaato ku haysto qaybta degdega ma jirto sidoo kale cudurrada dhimirka ah marka sida ugu habboon waxay tahay maadaama reerkii qofkii uu naftiisana khatar ku yahay dadkii kalena khatar ku yahay in meel uun maaragtay rag joogaan oo xoog leh u qabta u haayo u dabiiba inay geeyaan faru ka baxay oo khatar ku yahay bulshadii iyo familkii ayagii iyo naftiisiba marka asbaabahaas keenta cilaajka baahideeda marka iyaguna hadda waxaad muddo isbedel weyn inuu ku dhacayo oo ay arkeen inaysan waxaan ay ka tan badan tahay oo qofkii aan meel isaga hayn karin oo u baahan qofka caafimaad u baahan marka dhakhtarro badan oo dhimir ku yaalaan wadanka marka mise waa sidii dadka warayso dhinaca cudurrada dhimirka marka la yiraahdo dhaqaatiirtu aad uma badna ma jirto clinical guidelines ka habka loo turxaan bixiyo ama calaamadaha lagu garto sida loola tacaalo sida teamwork oo psychiatriga ama mental health ka qofkii loola tacaalo dhinacii nurse macnaha kalkaalisada ha noqoto psychologist ama cilmi nafsiga qofka soo kusoo takhasusay dhakhtarka sida habka casriga ah ma jirto sidaas ma jirto marka waxyaalaha hadda xoog aan saarayna waxay tahay marka inaan hadda clinicalkan saan u shaqeyno waa sidii Sweden aan u shaqeynaan hadda xagga uga shaqeyna waa qayb ka mid ah xataa faafinta cilmiga inay dadku bartaan habka loo shaqeeyo oo looga shaqeeyo cudurrada dhimirka marka taa xagga cilmiga hadii eegno jaamacaduhu waa kun soo saara kalkaalisooyin caafimaad farabadan bay soo saaraan jaamacado farabadan oo caafimaadka ama dhakhtarada guud jaamacadaha ma ku jiraan wax psychiatry amba dhimirka dhakhtarada dhimirka way ku jiraan curriculumka caafimaadkooda waa ku wada jiraan laakiin ma jirto qayb department oo psychiatric ah oo ay ka dhalinyarada ama jiilka caafimaadka baranaya ugu sanadada ugu dambeeya ay si fiican uga baran karaan way ku yar tahay dalka marka loo fiiriyo Soomaaliya dhinac walba ama Somaliland ama noqoto dhinaca Ethiopia dhinaca areada safe area ama zoonka Soomaalida NFD-da aad ay ugu yar tahay marka meelaha hadda oo concentrated bulshada ugu badan tahay waa magaalada Muqdisho 4.5 million meelahaas ku nooshahay meesha labaad waa Hargeysa meesha kalena waxa waaye Boosaaso iyo Baydhabo iyo Kismaayo marka xoog waxa ugu badan yahay isleeyahay Muqdisho iyo Hargeysa way jiraan klinikyo kale aagaga Soomaalida laakiin baahidu aad ay u badan tahay populationka dhan markaad fiiriso baaxadda baahida iyo inta dabiibka caafimaadka maanka ka shaqeysa wax iskaafika waa kala weyn tahay baahi weyn loo qabaa صح dadkan inta badan waxa weeye mukhaatarad saameyn weyn ayuu ku leeyahay dabcan dhimirka sibada qaadka Soomaalida aaf weyn ku haya dadka Soomaalida dadka imka idii maadaama markaasi bukaan chiefka inta badan ma isla hadalka iyo taajinka la moodaya mise waxa soo kala qayb ka ah mukhadaraadka sideedaba hadda aad u batay isticmaalkiisa bulshada qaasatan Soomaalida si gooniina u naafeeyay oo dhalinyarada maadaama boqolkiiba 70 dhalinyaro u badan tahay populationka Soomaalida
oo inta dhalmada ay badan tahay meesha hadda wadamadan horumaray ay badan yihiin dadka waayeelka dhalmaduna yar tahay xagga waxaa badan dhalmadii aad u badan taasoo la mid ah inta dhalanaysona dhimashaduna ay ku badan tahay marka populationka markuu wuxuu badan yahay 70% dhalinyaradaasoo 30 18 ama 18 jir ama 18 ka yar waxa ay taabanayso marka balwadun waa dhalinyaradii waxayna saameyn weyn ku yeelataa aragtida isbedel ku yimaado dhinaca codad inuu qofkii maqlo inuu qofkii uu arko waxay dadka kale aysan arkin in qofkii shaki badan oo paranoia oo maaragtay in la daba socdo in TV-yada iyo meelaha kale iyo telefoonada iyo waxyaalaha waa qayb ka mid ah aragtida qofku marka uusan waaqiciga ku xirayn isbedel weyn ku samaysaa sidoo kale dabeecadda emotionalka bedeshaa qofkii sakano marna inuu faraxsan yahay marna inuu dagaalamayo marna inuu ooyayo oo isku xigxiga in qofkii marka uu gabo waxyaalaha aas-aaska nolosha uu ahaa heer uu gaaro qofkii inuu nafti uu yiraahdo culays baaba ku tahay adduunka iyo dadkaba iyo aragtidii dadka culayska uu ka dareemaba inuu galo heerka khatarta inuu ama nafta iska qaado ama dadka kaleba khatar ku noqdaba waa runtaa tusaalahaan istiilka in waxa la yiraahdo Soomaalida uu ku soo badanay in dadku yani istiilaan hadii dalkii noqotay hadii halkan ba noqotaba taa ka wariyada qofku waa goorma markuu gaaro inuu istiilo run ahaantii hadda 2018 I think 17-18 aan filaa inay ahayd isdiilka wadankan Sweden waxay 1269 oo la cadeeyo oo bikraftada ahaa in dad istiil ay la xaqiijiyo 90% rag u badnaayeen dumarku 30 meelahaas ay ahaayeen annaga maadaama bulshadan soo dhaxgalnana saameyn weyn nagu yeelanayso kaliya ahaanta iyo balwada iyo crisiska ama khataraha oo khilaafyada familka iyo kala dagga iyo waxaasoo dhan saameyn waxaana noogu sii daran dhinaci culturalka dhaqankii iyo bii'adan ku noolnahay midii aan naqaanay maaha taasna waxay keenaysaa qofkii inuusan ishelin keento marka in qofkii waaqiciga ka baxo keento qofkii marka inuu fakaradaas yimaadaan waxa asaldhigna u ah waa cudur qofku iskama soo dhacdo qof inuu rabo inuu isdilo ma jiro waxa keena waa cudur marka wuxuu soo maraa processu soo maraa Soomaaliya run ahaantii wax hadda oo research ama baaritaan la sameeyay ma jirto laakiin waxaan arkay aniga hadda intaan shaqeynayay hal qof oo run ahaantii dhinaca dhalinyaro ahaa 23 jir oo nafta iska qaaday arrin la xiriirta dhinaca drugska oo opiatka aad u isticmaalay neefti ku dhajisay oo dhibtayba marka uu dhintay marka kiisas badan oo kala duwan oo maaragtay dhalinyaro badan oo kuwa guriga isku xiray iyo kuwa dabaqay iska soo tuuray iyo waxyaalo cajiib oo dadka hore u aqoonin inay bulshada hadda ay ku bilaabato inay ka dhaxdhacayso la yaaban yihiin sidii loola tacaalay waxay tahay saldhiguna ay tahay qofkii in uu haysto dhibaato dhinaca cudur ay tahay dabiibkii aqoontiina ay ku yartahay dadkii marka waxyaalaha u ah marka dunida adduunka meelaha ugu yar dadku inay istilaan waa meelaha dadka caqiidada diinta ay aaminsan yihiin khaasatan wadamada muslimka marka qaybta dhinaca diinta iyo islaamka waxay tahay qaybaha xijaabka u ah qofka nafta inuu iska qaado ما شاء الله marka waxa jirta dadku waxa processya la maraya waad dadku yani xanuunku maalmo meel buu gaarsiin ilaa iyo ay qofkii inuu de nafta iska qaado ay ku imanayso hadaba dadka tusaalaan ka agdhow qofkaasi familkiisa waa goorma aad leedahay markaas waa qofka marka waa in alarm ku baxo de aad ogaatid qofkan kula nool amba walaalkaya amba saaxiibkaya imiko wuxuu u baahan yahay inuu caafimaad u baahan yahay waa goorma هذه سؤال عادي مهم sideedaba isbedel qofka markuu ku yimaado oo dhinacii hab nololeedkii qofka dabeecadiisii noloshiisii wuxuu qabsan jiray markuu gabo
hooyada iyo dadka ku agdhowa badana oy ka dareemaanba waa markaas marka su-aalaha ay timaado waa markaas markii loo baahan yahay in qofkii aan lala sugin ilaa cudurkii uu ku dhaco waxaa la yidhaahdaa ka hortaga ka horeeya daweynta marka ka hortaga marka waxay tahay marka in qofkii markii isbedel noloshiisa ku timaado waa wax caadiyan in qofkii crisis ku dhaco dhib ku dhaco qof xoolihii adduun sugaya in xoolihii waayo qof guri iyo noloshii hayay kala tagaan crisis ku dhaco in qofkuu jeclaa inuu waayo marka si kala duwan in qofkii daawo ama cudur uu keeno cudur kale siyaabo kala duwan u saameyn kartaa laakiin waxaa muhiim ah qofka ka agdhow horta hore qofka walaalka ama walaasha un markaysan ishaysanin adigu ishaysato inaad calaamadaha qofka dabeecadaad ku taqaanay markaad aad ka garato inuu isbedel ku yimaado in qofkii aan laga dheeraanin xiriirka iyo wada hadalka lagu badiyo lala socdo haddii ay jiraan hadda wadamadan ku noolnoo kale waxaa jira xarumaha caafimaadiyadu dhakhaatiirta fadhiya oo dhan aqoonay u leeyihiin waxaa jira even dhinaca sooshiyaalka oo kale dhinaca qayb caafimaadka qaabilsana jirta waxaa jirta dhinaca kale sidoo kale emergencyga oo psychiatricada ama emergencyga guudba hadaad wacdo in si toosa uu dhakhtar ugu xiran yahay marka guudaha ama Soomaaliyana markay tahayna meeshan maadaama individual leeyahay oo shakhsi loo nool yahay xagga waa collective qofkiiba markuu xanuunsadaba reerkii oo wada socda baba dhakhtarka ku soo gala iyagaaba u hadlaba macnaheedu waxay tahay inaan annaga dadkeena aan dabiibano meesha inta ay dhinaca kale ka tahay marka wuu jiraa xanaano familka way jirtaa aqoon xumaa jirta marka dhibaatada ugu weyn marka saameynta ugu weyn waxay tahay marka qofkii uu soo dhaco dadkiina ay culays ku noqoto oo qofkii marka inay noqoto inay dilaan way ku xadgudbaan oo silsilo la galo markaas way uga sii dartaa qofkii marka process kala duwan leh marka waxaa muhiim ah marka hore in laga hortago asbaabaha keena guud ahaan waa khilaafyada dhacaya ama dagaalada dhacaya waa kufsiga iyo falxumada oo ilmaha ama dadka kala duwan ama dumarka ama dhinac walba ha noqoto dadka loo geysanayo waa burcadnimada kala duwan oo ay keento daroogada iyo wixii la halmaamo ay keento iyadana marka siyaabo kala duwan in laga hortago inta aysan bulshadu ay taaban waa guud ahaan tan familkan waa ta hadda aan ka hadlayo waa mar dhow waxaad sheegaysay halkan marka taaban ka hadalno bulshadu ku daweynayso dadkii wada joogtay wala dareemaya laakiin halkan inta badan wadamada siiba qaboobaha iyo barafka iyo wadamada Scandinavian kale yani qofkii markuu meel cidla ah tuulo cidla ah oo inta badan cadceedayna jirin uu keligii guri ku xiran yahay taasi ma keenaysaa amba inuu qofku isku buuqo amba niyad jab ku timaado aad iyo aad wadamadan Scandinavian-ka waxaa lagu tilmaamay wadamada ugu badan oo keli noolaanshaha ay ugu badan tahay waxay ku jiraan wadamada ugu badan oo dadka nafta iska qaada ay ugu badan yihiin waxay ugu badan waa wadamada bulshadan ku dhaxneelna marka saameyn weyn nagu yeelanaysaa marka waxyaalaha marka muhiima waxay tahay marka more inba intay ka badan tahay si dhaxgalnaba khatarteeda iyo saameynteedu aad bay noo saameysaa marka waxaa muhiim ah waa dhaqanka Soomaaliga ah wuxuu yahay dad xiran iyaga isu xiran oo aad ay adag tahay in la soo dhaxgalo macnaheedu marka waxay tahay inaana dhaqankaas aanu ka tagin sababtoo haddii aan dadku is haysto iska warqabo waa dad protect macnaha mar walbaba isxanaaneyna is haysto meesha bulshadan ay tahay bulsho kali ah marka saameyn aad iyo aad u weyn ku yeelana qofka mugdiga iyo shaqada stresska iyo dhaqanka iyo xiriirkii dadkii bulshadii aad ku dhex nooleedood ka fogaatay iyo run ahaantii mid aad ogtahay midaan ogeyn kugu yeelana in waqtiga kasii badanba marka dhaqanka wadanka dadka u dhashay wuxuu yahayba
6 bilood kasta ama sanad kastaba inay ka baxaan way bulsho kale dad kale kuleylka iyo ay raadsadaan maxaad la siinayd markaa dadka keligood noole ku jira maad aragtay amba keligood noole meelaha waqooyiga iyo keligood guryaha ku xiran maxay tahay inay ku yani say u maarayaan waqtigooda markaa wallaahi bulshadan ku dhex noolnaa wada keli nool ahba marka ama waqooyi ku noolo ama dhinac walba ku noolo laakiin waxaa muhiima maareyn hab nololeedka u nooshahay in ay tahay mid waaqiciga ku xiran oo ah in qofkii exercise sameeyo qofkii bulshada ku xiran yahay dadkiisii uu la xiriirayo shaqadiisii waa qayb ka mida dabiibida nafta qofka inuu laakiin markuu iswaayo qofku waa markaas markay daranta haddana uusan haysan dad taasaa ugu sii daran oo khatar ah marka qofku inuu markaa inuu jimicsi toosaad sheegsiiyo dadka la sheegaysto dadka la kulmo xiriirkiisa aad u hagaajiyo nolosha waxa jira ku badan leedahay idana xagga Soomaalida siiba waxa weeyna Soomaalida badan ina malaha xoog u ogeyn xagga niyad jabka inuu dabda niyad jabaan oo la dhahdo xataa waxa jira depression amba niyad jabka xataa hooyada marka mushkil ku dhaca marka uu kala sida macaanka oo kale ku dhacan kuwaas in kuwa ka waran walahi niyad jabka midna waa mid qofka bini aadamka uu dareemo caadiyan qofku inuu niyad jabo wuxuu ku haminayo ama uu rabo inuu waayo waa jawiga oo hooseeya waxa laga hadlaya niyad jabka laakiin markuu cudur noqdo garaado macnaha heerar uu kala leeyahay heerarkaasna waxa aas-aaskan waa sidaa tilmaanto kala duwan ama ha noqoto hormoonka oo isbedelayo dumarka ama ha noqoto dawo ama cudur kale ama hereditary familial qofkii inuu waalidkiisa hore u jiray dhiiggiisa genetiga ay ku jirtay mana siyaabo kala duwan ama stress ama wax yaroo noloshii ay iskaga jirtay oo maaragtay inuu qofkii keeno inuu bulshada ka dhex baxo calaamadihii si quick degdega marka siyaabo kala duwan u saameyn kartaa marka aaday ugu badan tahay wadamadan ku noolnahay waana midda ugu daran waxay tahay kali ahaanshuhuna waa calaamadaha oo qofku markuu niyad jab ku qababa inuu keli qofku isku ururo isaga mugdi inuu jecel yahay dadka hadalkiisa iyo buuqa uu dhibaayo xanaaq oo dadkii uusan la shaqayn jirin dabeecadii isbedesho iyo wixii la halmaama marka aaday noo sii saameyn waa usii nugulnahay annagana dhinacaas niyad jabka صح وتكايدنا jirta wax weyn waxa la hurdadu saameyn weyn bay ku yeelataa maskaxda oo hurdo la'aan dad baan jira aan seexanin inta badan amba soo jeedo hadii aan badro uga isticmaalayaan amba waxyaabo kale mashquulsiin oo amba yani siyaabuna keento hurdo yaraan ay ku dhacdo aan seexan iyadoo hurdadu muhiimada amba saameynta ku leedahay dhimirku intee leeyahay maskaxda nasashadeedu iyo qofka bini aadam jismiyan ama maaragtay ruuxiyanba furaha deganaanshaha iyo nabadu waa hurdada furaha qofku inuu waaqiciga ku xiran yahay inuusan ku xireen xuduudda waa hurdada cudurrada dhimirka ku dhaca dhinacyo kala duwanba saameynta way ku yeelataa hurdo xumada marka si kastaba ha u noqdo hurdo xumada way soo galaysaa balwada ka soo gasho aragtida ka soo gasho niyad jabka ka soo gasho garaadka ka noqdo dhinacyo kala duwan oo cudurrada kala duwan oo dhimirka ah marka hurdada marka waa astaamaha calaamadaha ugu waaweyn oo qofka lagu garto in ama qofka inuu moodo inuu hurdo laakiin ma hurdo sariirtu iska saaran yahay habeenkii oo dhan subaxii shaqada markuu maba hurdo qofka wali waa daalan yahay marka macnaheedu waxay tahay ruuxii waxbaa gucleynaya waxbaa ku taagan stress ku taagan qofnaba indhahaba isuma geyn karaba qofna isagaaba doontaba dhibkii isagaaba doontooba balwadii adduunkii hurdada ka qaadaysa si uu bulshadii ama waxa shaqo ama mashquul wuxuu soo isaga dhigo taasoo keento in qofkii uu perceptionkii aragtidii iyo dabeecadii iyo xuduudda ka baxo aad ka jirtay marka dadkii waxa aad ay dadku ugu bateen maadagtay bariga bulshada oo taa hurdo la'aanta keenaysa tusaale ahaan ay dad fara badan arkaysayo 24 saacadood ku jira live amba ku jira baraha bulshada ku jiro saa uga qaylinaya dadkaasi
maxaa la soo dhan karaa ma miyirku ma sax ma yahay mise waayo halka sadadkii oo qofkii yani ilaa shalay ilaa maanta yowda ka dhaxaya barihi bulshada ka qeylinaya taasi nooc imka kusoo batay Soomaalidana weeyaan oo amba wax ma ku taagan waxba ay doonayaan fariin doonayaan diraan dadkaas maskaxdooda waa sidee dalaanta ma keenaysaa wallahi run ahaantii waa wax shakhsiyadda dadku waa ku kala duwan yihiin dabeecadda garaadka qof walba Ilaahay si uu karaameeyay marka waa qofkii on la aqoonin oo la arki jirin oo waxyaalo badan oo naga qarsanaaba hadda waxaan ku jirnaa jawiga informative-ka oo ah dhinacii information-ka inuu hadda fududiya technology-yadii marka waxyaalo badan way jireen waxyaalo badan oo naga qarsoomaaba hadda banaanka u soo baxay in haddii ay fududahay adoo iska fadhiyo xataa aadan ku jiri karin ama ku jirinba ama aqoon u lahayn social media in haddii lagu yiraahdo Jamaalu maartay adaa laga hadlay marka de waa inaad jawaabtaa marka bulshada iyo socialka kugu qasbaan inaad tira war waxa shaqo ku mali war anigu ma marka waa hab nololeedkii iyo noloshii waaqiciga isbedelay marka kama duwana marka dadku waa isku wada jiraan dadku isku garaad maaha dadku isku dabeecad maaha dadku isku jawi maaha marka وكل دوين ماركتي وحنا واحد عذره وحنا واحد عادية وماركتي قف كده بعدي شيء أبكو ولا شو لكن مركز الاختراع هانكو يكتد علمي سكاتريجا عم بدأ مسكحة هذا كو يكتد وقت روح سيكولوج واحد وجه قف الاختراع قدرتهم لش كسيد كي كل جيستا لكن ممكن قف كي واحد ركز هالكو تقدر منها سيكولوج عم بدأ اختراع هذا مسكحة وتقدر لش كسر لو كنا في سلام بقى في هركيسو لو كنا في سلها هالكاس صفر سنة adduunka dhan oo dhageysanayo ku nafisaya walaga yaaba tama ma la soo karaa qofku waa nooc min al u baahan yahay ku nafiso maadaama sida hore aan weeri bulsho isku xiran oo collective oo macnaha isku xiran oo oral ah oo mar walbaba dhinac u wada duusha oo aan macnaha ahayn dadka fudud in la soo dhaxgalo ama dadka kale bulshooyinka kala dhaxgala aan nahay annaga markii dhinaca kala aragtida nala qiimeynayo Soomaali markii la yiraahdo marka taas macnaheedu marka waxay tahay maadaama dad hadlo aan nahay oo aan ahayn dad qoraalka ama dad wax qora ama noocaas hadalka aan ku badan nahay waxaan nimid qurbihi aan nimid meeshii maaragtay aan wada hadli sheekadii ma jirto qof walba guriga ka soo jeeda marka waxay noqotay meel platform suuqi awal hore suuqyada meelaha lagu balami jiray hadda waxay noqotay qayb kamid ah in lagu sheekaysto dadkuna ay ku caloosha waxay ku qabaan in ay ku sheekaystaan waxaa jiray in dadku masaajidiyada ama goobaha oo diinta iyo goobo kala duwan inay ku kulmaan hadda aad u sii yaraatay xataa dhaqamadan cadaanka aad waxa ugu badnaa dhinaca kaniisadda ayaguna ku xiraayeen ayagana way ku sii yaraatay waxay galeen psychology iyo dhaqaalihiisa dhinacii caafimaadkana de ayaguna haddana wayba ku sii yaraato dhaqaalihii inuu saamaxaynin aqoon xumo inay jirto annaga intaasba maba naqaanaba annagaaba isu ah dhakhtarkii waxba isu nahay marka saameyn weyn waana caafimaad way noo fiican tahay sina nooguma fiicno waxyaalo badan oo kala asturnaaba maaragtay banaanka yimid marka waa maaragtay waxay leedahay khasaaro iyo faa'iidaba labada dhinacba ugu dambeyntii anoo aad kaga mahadcelinaya Dr. Liibano maxaa tala siinayd qofku dadka keligood nool oo kale maxaa tala siinayd amba dadka ehelka aad tala siinayd ugu dambeyn marka dhimirka ay dareemaan amba run ahaantii midna waa mid mas'uuliyad guud midna waa mas'uuliyad qaas ah mas'uuliyadda guud waxa waaye dadka sida madaxda ururada madaxda masaajidiyada ama hay'adaha dawladaha kala duwan in ay dadkooda u nuglaadaan ee mas'uulka ka yihiin ay la socdaan isbedel markuu ku dhaco qofkii uusan haysanin caawimaad u baahan yahay inaan qofkii la takoorin oo lagu dhibin waxa uu qabo oo si gooniya loo tixgeliyo haddii uu baahan yahay caafimaad iyo dabiib in lala raadiyo oo aanan xuquuqda iyo xaqa iyo karaamadu laga qaadin waa midda guud waxa iyana midda labaad oo ah
ka hortegidda inaanan lala sugin qofkii ama dadkii inay soo dhacaan oo qofkii waxyaalaha shaqada iyo habka u shaqaynayo tirada badan oo stresska keenayo ama dhibayo qofkii inaanan lagu cadaadin waa mid mas-uuliyad guud ama dhibaatada dagaalkii wixii la halmaamo iyo fakriga iyo wixii la halmaamo in laga hortago intaysan gaarin midda qaaska waxay tahay familka ama reerku in ay mas-uulka aabbaha iyo hooyadu khaasatan hooyada mar walbaba ka warqabtaa una nugul caruurta iyo dhallinyarada dadka la nool marka inay garashadu ay aan qofkii lagu dhibin la xanaaneeyo qofku markuusan haysanin adaa walaal ah adaa walaashiisa marka inaad garab siiso oo bahda caafimaadka lala xiriirsiiyo haddii dhibaato ay saameyn ku yeelato aragtidii ama qofki inuu naftiisa khatar ku noqdo ama dadka kale khatar ku noqdo marka xanaanadu waa midda koowaad ee garashada dhinaca kalena dee qurbaha iyo maadaama inta aad tilmaantay saameyn weyn inagu leedahay run ahaantii keli ahaanshaha oo bulshadan waxaa isbitaalka ugu badan oo emergencyga dadka soo raadsado dadka cadaanka ugu badan waa keli ahaanshaha dad xoolo haysta wax walba haysta laakiin aanan keligood iyo dadka waaweyn iyagoo siiba keligood nool 80 jirada aad iyo aad haddana weyn oo Soomaali ah khatar waa wax fiicna marka waxaa muhiim ah haddii waalid oo qofku meeshan ku haystaba inuusan ula dhaqmin sidii dadka cadaanka in laga warqabo waayeelka aad iyo aad waan soo gudbinaa su'aasha ugu dambeysay igu soo dhacday hadda wax weeye doon ugu dambeysay kiniinada amba dawooyinka loo qaato dhimirku wax side effect ma keenaan amba dhibaato qofka mustaqbalka ma keenaan su'aal aad u fiican muhiim ah horta dawo kasta waxay leedahay khasaaro iyo faa'iido marka waxaa muhiim ah qof aqoon u leh ama dhakhtar aqoon u leh dawadaas in uu horta qiimeyn ku sameeyo qofkan baahi ma u qabaa dawadan haddii baahidu ma ka badan tahay khasaarada haddii baahi u qabo waa muhiim qofka inuu qaato hadduusan baahi u qabin uma baahna waana waajib in qofkii loo sheego loo sharaxo khasaaraha iyo faa'iidada waxaa ka horeeya horta hore baahida qofka uu qabo sababtuu daawadan u qaadanayo waxa ay ka hortagayso khasaaraha ay leedahay iyo xilliga uu qaadanayo siduu qaadanayo intuu qaadanayo marka waxaa muhiim ah jaangooynta fahamka qofka bukaanka in laga dhaadhiciyo la socoshada maalin walbabana heeray taagan tahay in lala socdo qofka maaha daawada inuu iska wado in qiimeyn lala socdo mar walbaba ما شاء الله آد ياد بالبنص دكتور ليبان محمد عمر آد من كلام هذا الوقت كقالقة يعني هوش أقوفه ضيو آد بالبر ما صنعي thank you very much إن شاء الله وهاجي داود أنت سوق بقبلنا ما تا برنامج كي قار كهاي أنو كلا دكتور ليبان محمد عمر ودكتور حق عذر الجود يو دينير كقار هانيت با آد بنو مثل نيتنا يكون تنبأ نبت كليو